barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 7 qodob oo inaga caawin doona in jadwalkeena maalinlaha ah inuu hagaago. 7 qodob waxa la imanayaa marka aynu subaxii sida hurdada uga toosno. Markaynu subaxii sida hurdada uga toosno, qodobka koowaad ee aynu qabanayna waxa weeyaan in aynu koobiya ama 2 koobiya ama 3 koobiya inaynu cabno. faa'iidada inaad biyo cabtaa marka saa u soo toosto ama sidaadaba inaad biyo cabtaa faa'iidada ay ku leedahay waa maxay? biyuhu waxay kontroolaan oo ay xukumaan heerkulka jirka qofka bini'aadanka ah. waa shaqada koowaad. 2 biyuhu waxay qaadaan wax allaale wixii nafaqooyin ahaa ee aad cuntay iyo oksijiintii aad hawada ka soo nuugtay oo la isku daray biyaha ayaa qaada oo geeya halkii looga baahnaa. marka macnaheedu hadii biyaha aad qaata ay yar tahay jirkaaga oksijiin badanina gaari mayso, xubnahaaga iyo seliskaaga iyo unugyadaada fogfog oksijiin badan gaari mayso, nafaqo fara badanina gaari mayso. qodobka 3aad, biyuhu waxay naga caawiyaan in dheefshiidka jirkeenu uu hagaago oo uu wanaagsanaado. sidoo kale biyuhu waxay naga caawiyaan in jointskeena kala goysiyadeena meelaha ay lafuhu iskaga yimaadaan ee carjawdu ay ku jirto in si fiican ay u shaqeeyaan. markaasoo biyo badan aad cabtid leen halka lafteedu carjawdu leen kala goysadu leen dhegdheg bay leeyihiin biyo ay ku shaqeeyaan, biyahaasina qayb weyn bay ka qaadanayaan. sidoo kale biyuhu waxay normal gareeyaan ama ay hagaajiyaan ama ay saxdii ku daayaan ku hayaan. waxay ku hayaan blood pressure-ka bartiisa ay ku hayaan. garaaca wadnaheenu wuxuu diidayaa biyuhu inuu pressure jirkeenu inuu kor u kaco, dhiigga garaaciisuna kor u kaco, in hoos u dhacana way diidayaan. sidoo kale biyuhu cuntooyinkeenu cunnay waxay u bedelaan baa la yiri energy, wasay saynisyahanadu ayna leeyihiin. markaasoo biyo badan cabto markaasoo energy fara badan aad uu jirkaagu uu helayo. sidoo kale biyuhu waxay naga caawiyaan in jirkeena aanu dehydration ku dhicin oo aanu qalalin ayay biyuhu naga caawiyaan. gaar ahaan xilliyada kulaylaha oo kale, gaar ahaan xilliyada qofku exercise-ka uu sameeyo oo kale, markay biyo badan ka baxaan inuu qofku biyo cabaa muhiim weeyaan. waa qodobka koowaad ee naga caawinaya inuu jadwalkeena maalinlaha hagaago. marka saa u soo toosid waa inaad biyo cabtaa. qodobka 2 waa in marka saa u soo toosid aanad daawanin oo aanad eegin wax smartphone la yiraahdo, wax mobile la yiraahdo, in aadan daawanin oo aadan eegin. marka saa u soo toosid waa inaad hawlo kala qabsataa. mobilka halkaas iska dhig marka oo waxyaabaha inaga caawinaya inuu jadwalkeena maalinlaha hagaago. waayo marka saa u soo toosid laga yaabaa bal mobilka yareeyo, WhatsApp-ka yareeyo, furo YouTube-ka yareeyo, Facebook-ga waxa laga yaabaa 30 minute halka kaaga khasaaraan oo aad hawlo kale ku qabsan lahayd. sidoo kale marka aad soo toosid waa inaad samaysaa 20 minute ilaa 10 minute inta u dhaxaysa oo exercise yar oo fudud ah. waa inaad orodaa, waa inaad jimicsi yar kala samaysaa, push up yar kale waa inaad samaysaa, jimicsi kale oo jirka waa inaad samaysaa, waa inaad 10 minute iyo 20 minute waa inaad jimicsi yar oo fudud aad samaysaa. sidoo kale marka saa soo toostid subaxii waa in aad weysaysataa oo tukataa oo weysaysataa oo masaajidka tagtaa salaadii subaxdii oo soo tukataa. dabeetana inta masaajidka joogtid 10 minutes ama 20 minutes waa inaad akhridaa quraan, waa inaad akhrisataa 5 page quraana, 10 page quraana ay inta ka gaari karaysid. buug kale oo faa'iido leh, waxyaabo kale oo faa'iido leh oo maskaxdaada furfuraya waa inaad akhrisataa. ay shay uu quraanku ugu horeeyo iyo dhikrigu ugu horeeyo waa in aad la timaadaa oo akhrisataa. marka waxa loo qeydaa ugu yaraan 5 page waa inaad akhrisataa subaxii marka aad kacdid oo quraana ama buugaaga ama wax kale oo cilmiya waa inaad akhridaa. sidoo kale subaxii markaad kacdid waa in intaadan wax akhriyin waxa ka horeysan salaad tukatid qof masaajidka waa inaad tagtid oo soo ducaysataa oo aad ajarkii salaada subax iyo wanaagii oo dhan aad soo heshaa, aad quraan soo akhrisataa, maskaxda refresh soo siisaa. inta marka aad dhameysid waxaad dib u eegaysaa, aad review ku sameynaysaa wixii ku yaalay qorshayaalaha ee aad doonaysay in aad maanta qabatid.
haddaad doonaysid inaad guul gaadhid oo maalintaadu aanay kaa khasaarin waa in maalin kasta jadwal maalinle ah aad samaysataa waa shaqooyinka aad qabanaysid waa inaad qorataa kolba qodobka aad qaban karaysid ee kuugu muhiimsanna waa inaad ka bilowdaa marka waxaad review garaynaysaa gooliskii ku yaalay kadibna waad balaangaraynaysaa qorshayaal baad samaysanaysaa marka 10 qodob 2 qodob 3 qodob 4 qodob 5 shaqo 2 shaqo 3 shaqo 4 shaqo inta markaad qoratid waad ku dhaaqaysaa marka inta markaad dhameysatid ee ay 6 qodob aad halka saartid waxaad u imanaysaa marka in aad diyaar garowdid waa inaad waxa lagu soo daraa 7 lagaga dhigaa in aad meeydatid oo muxuu ahay maadaama jimicsi yarna samaysay aad yaro oroday oo laga yaabo inaad yaro dhididay biyo yar baad ku shubeysaa markaad qabowdid ee aad habiga noqotid ilaa 20 min 30 min baad meeranaysaa dhag markaad meeydatid jirkaaga refreshment buu helayaa 7 qodob baad dabadato markaad saa u dhameysidna wasaasaad markaa muxuu ahay ku tawakkalaysaa shaqooyinkaagi maalinlaha iyo hawlahaagi maalinlaha ahaa ayaad muxuu ahay barta ka sii